الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي سيديد إيا اللحدانات إيا كتاب كين حكم وفوائد من روائع الإمام ابن القيم رحمه الله حقائق القرآن ومعلومة أما الحكمة لوغد دقا عوان حقائق ذا قرآن كشيغيو حقائق إيا أهرمع عجبدا إيا فهم كقرآن محولي الشيخ ابن القيم رحمه الله ما أشدها من حسرة maxaa ka weyn qoomamo maxaa ka badan shay dagitaan qof calaa man afnaa awqaatahu fi talabi alcilmi qof ka bax ee cilmiga iyo barashadiisa waqtigiisa gelinaya huma yakhruju min addunyaa wamaa fahima xaqaa'iq alqur'aan haddana adduunka ka baxaya isagoon qur'aanka fahmin isagoo oon fahmin ama waqtigiisiibuu wax kale u badiyey qur'aanka mar walba inuu u bato waxbarashadaadu iyo waqtigaagu sheekhulislaam ibnu taymiya raximahullah oo la ogyahay inuu ku jiray jihaad tiro badan ama gaaladii ha noqdo ama bidcadii ama kutubta qur-aan doodoodii iyo umuurahaas waqtigiisa inta ugu badan qaatay aakhirkii markii uu ku jiray xabsiga ugu dambeysay waxaa kamid a hadal laga soo guuriyey wuxuu yidhi yaa laytani yani shalayta iyo qoomamo isagoo muujinaya maxaan waqtigayga oo dhan qur-aanka u gelin waaye qur-aanka maxaan u gelin waaye ayib haddaba hal arin oo bal fahamka qur-aanka aynu soo qaadana mowqif insha allahu tacaala waxaan isweydiineynaa farqiga u dhexeeya qur-aanka hadduu qofka aada hoos u fiiriso baa wax badan baa kuu soo baxaya mathalan alfarq bayna almar'ati waazawjati wasaaxiba qur-aanku wuxuu soo arooray iyada oo mar ah waa xaas zawja waa xaas saaxibo waa xaas yacni intaba waa lagu cabiri karaa markii qur-aanka aada aragto saddexda arrimoodba uu cabiray laakiin waa saddex arrimood oo kala duwan almar-ah waxaa la odhan karaabaa haddaad qur-aanka ku laabato markii ay dadka labada ruux calaaqa jasadiya ka dhaxaysa xaas ahaan gogoleed way isu yihiin laakiin tawaafuq fikri iyo insijaam isku fikir ma aha waxaana isku diina inaynan ahayn siduu ilaahay markuu cabirayay waxaa layidhi imra'ata nuux iyo imra'ata luut ayaa lagu cabiray waa imra'a baa laga cabiray ereygaasaa la cabiray nuux iyo luut xaaskoodii imra'a baa layidhi fircawn xitaa xaaskii imra'atu fircawn qof ahludiin oo ahlu iimaana bay ahayd isaguna ma ahayn marka waa labada qofku haddii ay diin ku kala tagsan yihiin laakiin ay isqabaan imra'a baa la adeegsan karaa haweeney laakiin zawja ma aha zawjo goormaa la odhan karaa ereygaa ma qaadan karto zawja waxaa la odhan karaa idaa kaanat hadday jirto calaaqa jasadiya labada qof calaaqa waxaa ka dhexeeya xaggii jasadkii oo gogoleed way ka dhexaysaa tawaafuq iyo insijaam iyo maxabana way ka dhexaysaa waxaa ka dhexeeya laba qof oo fikirka iyo fahamka iyo wax walba ku midaysan wey marka diin baa labadoodan yaa midaysa iyagana taas zawja la odhan karaa waa sida ilaahi subxana watacaala aadam markii le waqulnaa yaa aadamu uskun anta wa zawjuka aljanna baa layidhi adiga xaaskaaguba jannada dega rasuulka markii laga hadlay yaa ayuha nabiyu qul liazwaajika baa layidhi haweenkaaga zawjooyinkaaga ku dhe marka zawja waxaa la odhan karaa waa darajada ugu sareysa waa markii fikir ahaan iyo diin ahaan iyo faham ahaan iyo jacayl ahaan intuba ay ka dhexaysa labada qof saaxiba goormaa la odhan karaa oo qur-aanku iyadoon soo qaaday saaxibo waxaa la odhan karaa markii ay calaaqadii ay dhammaato fikriga ahayd iyo tii jasadeed tii gogoleedna way dhammaatay tii fikir ahaana xilligaa ma joogto way dhammaatay bimacnaa labadee zawj waa xilli la tegay oo qiyaamadii oo kale mathalan yowma yafiru lmar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibati bal u fiirso saaxibadaasi waa xaaskiisii adduunka marka la joogay zawjay ahayd laakiin hadda saaxibaa la odhan karaa maxaa jira gogoli meesha ma taalo oo labadooda hadda xilligaas ma dhex marto ayib waxaa jira mowduuc ama mowdic ama meel qur-aanku uu si kale u cabiray calaa lisaani zakariya waxaa qur-aanku ilaahay cabiray wuxuu yihi wakaanat imra'atii caaqiran haweeneydu xaaskaygu waxay ahayd mandhalis imra'a buu ka cabiray zawjayna ahayd oo waa xaaskiisii maca daalika imra waxaa la yidhi
waxaa ku jiray calaaqadooda iyo xidhiidhkooda khalal baa ku jiray, ilmo la-aanna way ahaayeen, mowduucul injaab iyo ilmo la-aan baa haysatay. marka sidaas daraadeed waa wax badan baa qofka dadka soo dhexgelaya. marka ilaahay markuu islaaxiyey oo ilaahay uu ku arsaaqay yaxya la siiyey, tacbiirkii qur-aankuna waa isbedelay oo alla wuxuu ihi fastajabnaa lahu wawahabnaa lahu yaxya wa aslaxnaa lahu zawjah. ilaahay xaaskiisiina zakariya waanu u hagaajinaa layidhi. marka khalalkii ku jiray oo markii hore imraa baa laga cabire, meesha waa laga saaray, zawja iyo booskii u sareeyey ayaa lagu soo celiyey, zawja alla ku magacaabay, khalalkiina waa la bixiyey. wuxuu ilaahay fadeexadeeyey gurigii abulahab, ilaahay baa fadeexadeeyey oo waxaa la yidhi wamra'atuhu xamaalat alxatab, xaaskiisii ayaa waxaa laga cabiray, zawjadiisii lama odhanin. cadaawada iyo xumaanta isku bahaysteen, laakiin dad wada socda ma ahayn, dad iskhayaamo bay ahaayeen. sidaas daraadeed baa waxaa laga cabiray wamra'atuhu xamaalat alxatab, xaaskiisii zawjadiisii lama odhanin. waa fadeexad ilaahay subxaanahu watacaala uu fadeexadeeyey. waa usoo qaadaynaa marar badan markaan kitaabka ilaahay fasirayno, zawja iyo imraa iyo saaxiiba isku mid camal bay inoo yihiin, laakiin markaad si daqiiqa iyo fahamka dhabta ee qur-aanka gadaal loogu sii laabto, waxaa soo baxaysa inay sidaa u kala duwan yihiin. ilaahay subxaanahu watacaala fahm wanaagsan haynagu arsaaqo. allahuma ina nasaluka cilman naafican warisqan طayiban wacamalan mutaqabala.